أرجع ما تدعي اللي بنحمد نور جروجو كلي لما ويررينا وحلا ويرري كلها وكيلة الله ويرري وحلا ويرري دستور كجمهورية الشمال لما ويرري وايو دستور كفنتيسو dadka golayaasha fadhiyo oo waajibkuma waajibku yahay dukumeedka dastuurku cid kasta qofka shacabka qofka maadaritay kaaskariga ka ciidanka marka qodobka 49 ee dastuurku xasanad buu siiyay mudanayaasha xasanada uu siiyay farqada saddexaad baa si fiican uga hadlaysa waxa la ma banaana in laga qaado xubnaha golaha wakiilada tallaabo baaritaan ama waraysi qabasho ama xidhitaan ama tallaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo ogolaasho laga helin golaha wakiilada mooyaane mar haddaan mudanaha la baari karin aan tallaabo ciqaab laga qaadi karin gacan la maadi karo عدي كيس مدني كويس تادي محكمة كيس كمدني قام مدنياش قدر كاسة فصحيح سجلا فرتنادو فرقة قدام بيسافر السحدو دوال وقوليه وحويا مركا واحد الله ويرري دستور كيف الله ويرري مدناتي مدنها الله ويرري شعب كيف الله ويرري دورتي مدنياش الله ويرري وحويا ودن كاني وكد وين يا ودن ماذا كلا ودن مال دو تولى كل حطاني يقول صوبلو سعوتي من ودل كاس كورنو أروس كله غير سرعة وقالوا وأني كانوا مدن موقت ويا واحد هذا كل جيس كسعودة إسكده السعودة مقرنة ساته تيله بين السيء وحكوت مدينة شرع جاي على إنه حكوت مدينة إنه إلى إنه ما درت وحيا إنه ما درت إنه سمي سنين أنا إلى إنه تاسكوت مدي وحويا هدي اللي ما ندرس سكورة تجو حماده وحيمان إنسا إن قف كست وبهذا دلبا عسكريو إلى عليه دلبا عسكريو إلى عليه أنا خرج وضع كده خرج يقص بيده أي جهات كرين تونا marka cid aan la hadlaynaa qofka shacabka gacanta geystama waxaan la hadlaynaa wasiirka arrimaha gudaha la hadlaynaa iyo janka booliska iyo hay'adaha nabadgelyada la hadlaynaa hadii aydan ciqaabta uu leeyahay aydan marin mudane shaqo tagay oo goliisi ku socda in dhaxda loo galay waa qaadicu dariiqnimo waa burcadnimo waxa weeyaan waa in gacan lagu soo dhigo hadii aan lagu soo dhigina golaha wakiiladu waajibkiisu gudan doonaa uu fariisan doonaa general assembly-guna go'aan ka soo bixi doonaa marka waana la iskaga daba iman doonaa haddaan tallaabo degdeg la qaadin saaxiibkeena waxaan leeyahay nabar gardarra uga dhigo waanu ku garab taaganahay waxaynu isku nahay sida maxaa la yiraahdaa far waaxida marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinku saxaafadda madax bannaan arrintanna waxay ku tusaysaa horta markii koowaad maaha la soo weeraro xildhibaan Garuuje tii horeyna ogeyd hoteelka xafladda aan ku qabanaynay aan joognay ilaa imka waxba laga qabanin dacwadiina loo soo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha ilaa imkan waxba laga qabanin tana waa tii labaad intaa wax ka badanna waan uma dul qaadan karno haddaan nahay xildhibaanadii qaranka ee la soo doortay ee shaqadoodii loo idmaday qabsanaya intaa ka badan uma dul qaadan doono waxaan ka codsanaynaa ama aan faraynaa xukuumadda inay sidii waajibkeedu ahaa ay hawsha wax uga qabato arrinka doonaya inaan kaga hadlo arrin mucjiso ah oo runtii wax lala yaabo ah oo mar dhaweyto aniga oo meel ku jirna oo mashquul ah lay soo gaarsiiyey arrintaasi waxa weeye dhibaatada loo geystay xildhibaanka Axmed Nuur Garuuje oo ah nin dhalinyaro ah oo professional ah oo xubin baarlamaanka aanu ka keenaya hay'adaha ku shaqo la arrintan oo ah arrin criminal ah oo dembi weyn ah oo wax aad iyo aad dawladnimada iyo xadaaradda aynu sheeganayno meel ka dhac ugu ah inay tallaabo degdeg ka qaadaan in ay sharciga mariyaan in ay xaqiijiyaan arrintaas oo kale inaanay mar dambe cidina ku dhiiranin waxaana rajaynayaa inay sidoo kale salaadiinta iyo odayada dhaqanku ay arrintaa meel cad iska taagaan iskana fogeeyaan dhibaatada dhacday inaanay wax dhaqan lala xiriirin kara ahayn wax sharafa inaanay ahayn wax ilbaxnimada iyo dawladda aynu sheeganayno khuseeya aanay ahayn waxa la sheegay markaan yar wareystay maxaa nimanka isu keenay inay hadallo siyaasadaysan hawada isu yara mariyeen taasna weligeed buu dhici jirtay in kelmada la iska yiraahdo miidiyaha dadku ay miidiya ka wada hadlaan laakiin tan oo kale waa arrin mucjiso ah hore u dhicin waana wax aad loola yaabo waxay dib ku tahay dhammaan dadkii soo doortay xildhibaanka dhammaan dadkii soo doortay xildhibaanada iyo dhammaan xildhibaanada heer kasta ay yihiinba run ahaan dib weyn bay ku tahay victim baana u yihiin waanaanu ka xunnahay waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dawladda gaar ahaan arrimaha gudaha iyo qoliyaha amniga qaabilsan inay arrintaa caddeeyaan inay foolxumo weyn tahay